طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalayaal waxaan jeclahay inaan insha allahu tacaala kalimaad ka iraahdo danta bisha ramadaan ilaahay u waajib yeelay, maqsadka iyo hadafka iyo danta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka leeyahay bisha ramadaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu nafta khasbayo oo la leeyahay ramadaanku waa waajib, waa bil sanadka ka mid ah, bishaas waagu markuu bariyo, qoraxdu markay soo baxda ma waagu markuu bariyo Soomaaliya gar hadda waa 5 iyo rubi 4 iyo rubi 10 saac iyo sida Soomaalidu ay yiraahdaan 10 saac iyo dhowr iyo 10 daqiiqo ayaa waxa weeye waagu bariya oo aadaanka labaad la adima waqtiga ka soo bilow ilaa qoraxdu ka dhacayso. qofka waxa la yiri cuntana ha cunin, biyana ha cabin, wixii horay xalaasha kugu ahaa sida qofku inuu xaaskiisa u galmoodo waa ka xaraan balay. dambiyadii kalena waaba kaasii xaraan, maxaa yeelay wixii xalaasha ahayd baa laga xaraantinimeeyay. maxaad u malaynaysaa wixii xaraanta ahaa? maxaa ilaahay uga daleeyay subxaanahu wa tacaala xalaashii ilaahay inuu yiraahdo joojiya bishan danta uu kaleeyahay maxay tahay? insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaan kalimaadkan ku soo kaga warramo qodobka muhiimka ah ayaan jeclahay, si qofka muslimka ahi marka uu maxaan ku iraahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudayo uu ugu caabudo asagoo laabtu uu qabowdahay, niyadu uu wanaagsan tahay, faraxsan. marka uu maqsadka iyo danta laga leeyahay soonka uu fahmo, wuxuu u soomayaa asagoo raaliya oo qalbigu uu qabow yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku faraxsan amarka ilaahay uu bixiyay subxaanahu wa tacaala. danta ilaahay ka leeyahay maaha in aanu cunada ka tagno oo cabitaankii aanu ka tagno oo sharaabkii iyo macaankii iyo wixii aanu jeclayn aanu ka tagno. danta intaa kaliya ma, laakiin hadafka iyo danta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka leeyahay maqsadka ugu weyn waxa weeye wixii aynu aakhira ku badbaadi lahayn inaynu shaqaysanno. aakhiro camal bay u baahan tahay, dadaal bay u baahan tahay. Soomaaliya garan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa weeye man khaafa adlaj, qofka baqa safar buu qofku nabigu sallallahu alayhi wasallam ku tusaaleeyay. qof safar ku jira oo waliba wata faras ama rati saaran, gawaarida hadda way iska sahlan tahay oo habeenkii hadda socorayso Soomaaliya garan meel uu cadow ka baqayana dhex maraya. nabigu sallallahu alayhi wasallam qofka baqayaahi habeenkii buu guureeyaa. waman adlaja balagha almanzil, qofkii habeenka guureeyana alla ilaahay meeshii u socday iyo meeshii waxaan ku yiraahdaayay safarkiisu ku dhamaan lahaa waa uu gaaraa. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ala inna sil'ata allahi ghaaliya, badeecada ilaahay idinka iibsanayo oo cibaadadan iyo taacadan aad ku badalanaysaan, inkastoo ilaahay fadligiisa aanu jannada ku galayno, laakiin icmaluu ba ilaahay subxaanahu wa tacaala yiri fasayara allahu camalakum, camal sameeya ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkiina wuu arkayaa. soo ma jeedaan silcada ilaahay nooga iibsanayo nooga bedelanayo cibaadada waa maxay? ala inna silcata allahi ghaaliya, waa silcad iyo badeecad qaali ah. ala inna silcata allahi aljanna, janna ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaafsanaya. xoogaagaa yarkaa oo dhinaca caafimaadka ka ah oo naftu ay u baahan tahay, oo Soomaaliya garan hadda adduunkii cholesterol iyo cudurro xunxun iyo dhibaatooyin iyo macaan baa dadka lagu salladay. waa markii ay cuntooyinkii iyo wixii ay cunayeen aysan u aabayeelin. dhinac waa caafimaad bisha ramadaan oo caafimaad baa laga helayaa. Soomaaliya garan sidaas ayadoo ay tahay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala hadafka iyo qaayo kale iyo dan weyn oo kale kaleeya. Soomaaliya garan ramadaan ilaahay wuxuu ugu talagalay inay noqoto bishii uu qofku cusboonaysiin lahaa tawbadii iyo noqoshadii Allah subxaanahu wa tacaala u noqon lahaa. bishaasi waa bil gooni ah oo ilaahay ugu talagalay dadku ilaahay inuu noqdaan subxaanahu wa tacaala. ilaahay waqti walba wuu noo dhawaaqaya. ilaahay wuxuu leeyahay watuubuu ila allahi jamiican
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وردديه إلهي سبحانه وتعالى النقضة والدنبية سميسين uga noqda oo gaabinta ka gaabiseen cibaadadiisa Ilaahay uga noqda dhammaantiin dad yahu mu'miniinta ahi waxaad mudantihiin inaad liibantaan bishani waa bishii toobada la cusboonaysiin lahaa danta Ilaahay uga leeyahay calooshayada inaynu gaajaysiino waa inaanu Ilaahay u noqono subxaanahu wa ta'ala maxaa laga helayaa Ilaahay hadii loo noqdo maxaa laga helayaa barwaaqa adduun baa laga helayaa janno aakhira laga helayaa soomada garan maxaa marxaati iigu ah waxa marxaati iigu ah إلهي سبحانه وتعالى وحليه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هديدتك مقالوين كدقني أي إلهي رمين لهايين كان بقي لهايين حاميشا كجرة تقوى وحا كمدة إن إلهي قفك أمر والبا إلهي النقضة لا تقوى كمدة هدي إلهي كبقي لهايين ربنا سبحانه وتعالى رمين لهايين لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وحنو خير إيا بركة بدن وقفر إلهي عرارك إيا لولك ayaan uga furi lahayn maanta waxaynu ka qaylinaynaa oo ka sheeganaynaa walaalayaal waa maxay abaaro istaba joogta ah oo waxaad maqlaysaa meel hebla 5 sano roob ma qaban soo ma jeedid meel hebla 5 sano roob ma qaban soo wada garan 20kii sano ugu dambeeyay 30kii sano ugu dambeeyay imisa abaarood ba soo maray kartoomalay heblaayo tii barafka waxaas inta laga sheekeeya mawjadaan maxaan ku iraadaay abaarahaas istaba jooga ah waxaynu uga bixi karnaa Ilaahay u noqoshadiisa bishani marka waa bishii rabbi loo noqon lahaa waa bishii waxa weeye rabbi u noqoshada la cusboonaysiin lahaa tanta Ilaahay marka kaleeya subxaanahu wa ta'ala waxa weeye war iisoo noqda aan adduunka iyo aakhiraba idin barakeeye iisoo noqda khayrka albaabadiisa aan idin fure iisoo noqda jannadayda idin geliye إيسو نقطة بديعة قالقة على نسية وجدا مقصدك إلهي سبحانه وتعالى ودى اللي ولا ليال واسدا إذن بشهر رمضان وبال إلهي سبحانه وتعالى الله نقضة وين محا إلهي سبحانه سيدو كلي قضب كاللباد أو إلهي سبحانه وتعالى بشن إنوغا أوميي بيه أو إنوغا جوجي عنتدي أينو جعلين ومحي إلهي إنو نتصوب in nafteena ay ku jirto awood iyo doonis inay ku jirto Soomaalida gaar doonisaasna aynu ku dooni karayno waa maxay inaynu khayr ka sameeyno Ilaahay baan idinku dhaariyay bilaha kale marka qofku uu quraacda ka tago duurka wuxuu raayo niman yahow saaka ma quraacan oo gaajo adag ba ay haysan hadduusan qadayno habeenkii wuxuu raayo riyo maanta ma qadayn gaajo adag ba ay haysan bal ka war laakiin ninka waxa weeye quraacdi ka tagay oo qadadii ka tagay oo cashadii isugu wada geeyay wixii oo dhan inta maxaa sii dheer qofkaasi qadada ka tagay ama quraacda ka tagay biyo cabaya shahbu cabaya mawjadaan laakiin qofkani biyana ma cabi karo shahna ma cabi karo maxaa Ilaahay uga daleeyay bina aadayahu waxa Ilaahay na tusaya awoodda Ilaahay na siiyay oo aanu naftayda wax kaga bedeli karno waxa Ilaahay na leeyahay qofka sigaarka cabayo bishan awood baad u leedahay inaad waa maxay naftaada xakamayso maxaa yeelay awal hadii sigaarku ku qaban jiray 10 hal saac uu ku qaban jiray 12 saacadood 14 saacadood baad ka soontay oo naftaada ka xakamaysay naftaada awooddaasay leedahay awooddaada waxa way ka shaqaysii oo rabbiga ugu noqo ba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nalay Soomaalida gaar faa'iido weyn hadii awoodda Ilaahay jirkeena uu siiyay iyo go'aan qaadashadii Ilaahay uu nagaliyay Ilaahay hadduu tusayo subxaanahu wa ta'ala وجدان وبال marka Ilaahay ugu tagagalay subhanahu wa ta'ala inuu awoodaha jirkayaga ku jira iyo go'aan qaadashadayadu inay tahay wax aan awoodi karno Soomaalida garan waa dhaxdaas madaxweynaha yaasha Mareykanka kamid ah ba waxa kamid ahaa hal ku dhig waxa uu ahaa weekend waan awoodnaa bisha Ramadaan ba ka horeysay oo leh you can waad awoodi kartaa Soomaalida garan waxaad awoodi kartaa inaad naftaada bedesho waxaad awoodi kartaa haddaad wada xun ku taagnayd inaad wadadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u soo noqoto sida daraadeed walaal Ilaahay awooddaas ku siiyay aad naftaada ku maamuli karto naftaada ku xakameyn karto taa inta kaliya ma hay tii adduunka hadduu qofku ahaa mashaqayste iska seexda waad awoodi kartaa inaad naftaada bedesho waad awoodi kartaa inaad dadaasho oo aad xilli hore soo kacdo oo aad shaqaysato dhidido dhalinyaradeena maanta
awooddaasa ka maqan soomada garan wuxuu sugayaa labadii waalid buu wax ka sugayaa adeer buu wax ka sugayaa soomada garan awoodu ma leh inuu gelinna shaqaysto gelinna uu wax barto awoodu ma leh soomada garan mar walba wuxuu sugayaa nin qof mobile u iibiya wuxuu sugayaa qof waxa weeye bishani marka awoodahaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala tusaya waa faa'iidooyinka bishaan iyo maqsadka iyo danta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka leeyahay weeye soomada garan qofka sidaa daraaddeed waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu waddadiisa ku socdo wuxuu awood u leeyahay waddada inuu ku taagnaado mararka qaarkood hadday waddadu ka yara leexatana inuu naftiisa dib u soo celiyo ayuu awood u leeyahay soomada garan bishani marka waa bil ilaahay subxaanahu wa tacaala la weyneeyo awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadanka uu siiyeyna waxa weeye ilaahay toosh uu noogu daaraya u leeyahay war awood baa idin siiyey awooddiinna ka faa'iidaysa bisha ramadaan danta iyo maqsadka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo danta uu ka leeyahay inuu nagu waajib yeelay waxaa ka mid ah bisha ramadaan waa bil ilaahay ugu talagalay niyadda in la khaalis yeelo oo ilaahay loo saafi yeelo oo aan cid kale wax laga siin subxaanahu wa tacaala soo ma jeedid waa bil ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay ikhlaas sidaa daraaddeed baa ramadaanka iyo soonku uu uga duwan yahay acmaasha kaleo dhan camalka aynu salaada oo kale ka soo qaad qofka waxaa laga yaabaa asagoo safka ku jira inuu qof istusayo laakiin bisha ramadaan yaa qofka ka warhaya cid ka warhaysaa ma jirto ma ujeedaa hadduu intuu qolkiisa galo biyihiisa ka dhargo ilaahay subxaanahu wa tacaala baa keliya og sidaa daraaddeed baa xadiidkii qudsiga ilaahay wuxuu u yidhi kullu camali bni aadama lahu ila asiyaam ila asawm riwaayaduhu waa kala duwanaayeen camal kasta oo bini aadan leeyahay asagaa iska leh soomadan garan intii uu shaqaystay in lamid ah la siinaya soonka maahay fa innahu lii soonka anaa iska leh wa ana ajzii bihi anaana ku abaalmarinaya abaalmarinta ilaahay uu leeyahay wa ana ajzii bihina waa abaalmarin aan xisaab lahayn ma ujeedaa qofka haddii hal darajo inta loogu dhufto 10 loogu dhufanayay oo 700 loogu dhufanayay xisaabtaas xisaab yar weeye wa ana ajzii bihi marka ilaahay leeyahay boqolaal kun malaayiin jeer ba ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhufanaya in ilaahay og yahay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhufanaya sidaa daraaddeed maxaan ku leedaayey waa bil ilaahay dadka ku tababarayo inay camalka keligii siiyaan ma ujeedaan waa bil ilaahay ugu talagalay inuu camalka noo laban laabo ajar weynna uuna siiyo subxaanahu wa tacaala bishaas waxa weeye maxaan ku dhahaayey ilaahay wuxuu yidhi yadacu shahwatahu wa طacaamahu min ajli wixii naftiisu jeclayd oo hawadiisu jeclayd hadday ahaan lahayd galmoodkii uu xaaskiisa u galmood lahaa hadday ahaan lahayd wixii uu cabbi lahaa hadday ahaan lahayd wixii uu cuni lahaa wuxuu uga tegay aniga dartay sidaa daraaddeed baan si gooniya u abaalmarinayaaba ilaahay subxaana wa tacaala leeyahy bishan marka ma mutaysataa in waxa weye 14 saacadood la soomanaado waa mutaysataa wey maxaa yeele ajar weyn baa ilaahay subxaanahu wa tacaala naga siinaya bishan marka ma aha bil ilaahay iska kaaya ciqaabaya maaha waa bil ilaahay ugu talagalay ajarka inuu noo laban laabo weeye faa'iidadaasaa ku jirta ilaahay subxaanahu wa tacaalana sidaas ayuu noogu laban laabaya sidaa daraaddeed baa qofka muslimka looga baahan yahay inuu bishaas ikhlaaska sii wanaajiyo oo sii kordhiyo si camalka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ugu laban laabo bishan waxaa ilaahay nagu barayaa sidoo kale ramadaan in qofku uu sabarka barto oo uu barto adkaysiga dulqaadka inuu barto baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay maxaa yeelay shahwadiisii iyo wanaaggii iyo wixii xalaasha ahaa baa ilaahay ka xaaraantinimeeyey maxaa ilaahay ugu talagalay inuu qofku dulqaad iyo adkaysin yeesho oo uu u adkaysto daacada ilaahay inuu adkaysto soomadan garan oo uu qofkii 14 saacadood soomanaa salaada subax aysan dhibi waayin baa ilaahay ugu talagalay inaysan dhibin baa ilaahay ugu talagalay maxay tahay salaad subax oo inta la weysaysto haddii xataa ay qabow tahay 10 daqiiqo gudahood lagu soo tukado guri qofku uu meeshuu doono uu ku soo noqonayo 14 saacadood baa soontay salaad subax baa ku dhibaysa baa ilaahay subxaanahu wa tacaala naleeyahay uu nagula hadlaaya macnuhu sidaa way soonkii baa wuxuu leeyahay 14 saacadood baad afkaaga xiratay ma waxaad awoodi kari weyday 5 salaadood oo midiiba 18 daqiiqo lagu jiray bay awoodi kari weyday idan waa bil ilaahay ugu talagalay in qofka muslimkaahi uu dulqaadka ku barto muxuu u dulqaadanayaa sabarku 3 nooc qaybood way qofku inuu daacada ilaahay u sabro u dulqaato soomadan garan 5 salaadood inuu qofku masaajid ku jiro wallahi wax sahlan ma
qofku marka inuu u dulqaato oo adaanka markuu maqlo masaajidkiisa uu aado waa arrin u baahan dulqaad soonka laga baranaya soo jeedid waa daacadii ilaahay in loo sabro xaaraantii in laga sabro oo ah wax kastoo ilaahay xarimay in laga sabro waa noocii labaad wax kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala xarimay in laga sabro soo wada gar haddaad gabdho calaaqaad aan wanaagsanayn lahaan jirteen ama wiil gabar yahay aad calaaqaad xumaana lahaan jirteen bishan ilaahay wuxuu leeyahay waa bishii sabarka ku tababaro inaad calaaqadaas joojiso haddaad xumaan kale ku dhici jirtay waa sidaas oo kale soo wada garan الصبر عما حرم الله وحي إلهي سبحانه وتعالى حرمي إن قفك الصبر صبرك سدحالنا وحاوي الصبر على أقدار الله وحي إلهي كو قدري إلا كو صبرته حنون باكو يمين قفاتي عشاهي باقيري يوضي مال آلا هيد باكو لافي دونك هو دار امتحان دار ابتلاء وي إن قفك الصبره إن محانكو لهذا لباتوينك يقدرت إلهي سبحانه وتعالى قدري حنونك أي لهذا إن صبره موجودات bishani waa bishii qofka lagu leelinayay lagu tababarayay inuu sidaa u sabro wajada bishani marka ciyaar qofka loo gaajisiin mayo ciyaarna waxa weey wixii uu jeclaa loo dhaafsiin mayo bishan sidoo kale waa bil lagu tababaranayo taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala qof yaa hamoodin ilaahay inuu iska kala goynayo ilaahay culays iska ka saarayo sidaa ma waa bishii aad ku tababaran lahayd taacadi bal ilaahay baa kugu dhaariyay eeg bisha maxaa furan qofkii waxa u furan inuu cumraysto oo lacagtiisii intuu bixiyo uu safro oo waxa weeye uu xarameynkii tago oo waliba maka uu tago oo cumraysto oo uu masjidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ku soo tukado sabada garan waa bil nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay cumrada bisha ramadaan la cumraysaay ka xajjatin maci inay la mid tahay xaj uu nabiga sallallahu alayhi wasallam la xajiyay inay la mid tahay wajada waxa inta sii dheer waa bil ilaahay noogu diyaariyay salaatul layl taraawih baa la tukanaya 12 ragcadood baa la tukanaya qofkii ka sii badiyo 12 ragcadood buu tukanaya juz buu ku tukanaya wajadaan waa bil ilaahay noogu talagalay inaan ku tababarno salaatul laylki wajadaan markaad afurto oo cishaaga tukato oo salaadihii waqtigoodii aad ku tukato baa salaatul laylkiina ku dambeeyaa oo ah salaatu taraawih nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kan leh qofkii من قام رمضان إيمانا واحتسابا قفكي وحوي استاغه بش رمضان السقو أجر إلهي كدل بي سبحانه وتعالى رميسنا سوادا قرن إن إلهي سبحانه وتعالى وأرن كان محان كلها سنة وقلقي موجودان إن سنة هاي وهذه النبي صلى الله عليه وسلم تها رميسنان ورميسيها إلهي سبحانه وتعالى أجر إلهي سبحانه وتعالى كأجر ضلبيه صلاة أتاقيه قفكي سيدا إلهي وقو استاقه أو صلاة الليل كالي ماذا أو سنه النبي صلى الله عليه وسلم تراويح ذا أجدي تكذا غفر له ما تقدم من ذنبه سيهر ضنبا على الآفاء بإلهي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليه وبالمركة قفكو حتى صلاة الليل كتاب براني صونكي با كتاب براتي شنتي صلاة إنا مساجد كتاب براتي quraankii akhrintiisa baa ku tababaratay waxa ku tababaratay afkaaga ina xirto oo aad naftaada ka ilaaliso qiibadii iyo xantii iyo waxa soo dhan soo wada gar waa bil marka ilaahay uu talagalay subhanahu wa ta'ala in qofku uu ku tababarto taacada ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo kale bisha ilaahay uu ugu talagalay inuu qofku akhlaaqdiisa wanaajiyo bishan bir sahlan maaha ilaahay ugu talagalay kaliya inuu noomiyo kaliya inuu nagaajeeyo kaliya waa bil loogu talagalay akhlaaqda in kor loo qaado sida daraadeed nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri hadii qofkiin uu qof ku buuqo ama uu damco inuu la dagaalamo waxa tiraahdaa inni imru'un saa'im anu waa soomana walaalo kula aytami mayo ku aflagaadayn mayo nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kan yiri soomadan garan hadii qofkiin maalintii uu sooman yahay yaan fool xuma ka dhicin oo hadal xuma aysan ka dhicin yuusan qaylin yuusan dadka caayin soo wada gar hadii uu qof caayana hay yiraahdo waa soomana nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis kale wuxuu ku leeyahay maxaan ku yiraahdaa qofka aan ka tagin hadalka xun iyo been abuurka iyo waxa weeye kelimada xun aan ka tagin ilaahay danka male inuu maalintaas oo dhan soomanaado oo cuntadiisa uu ka tago oo soonkiisa uu ka tago wajada waa bil marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay in dadka lagu leeliyo akhlaaqda wanaagsan qofku markii uu afkiisa xirto oo san dadka xaman
ودسن dadka caayin akhlaaqdiisa kor bay u kacaysaa Soomaalidan garan sida daraadeed maqsadka iyo danta Ilaahay kaleeyahay bishan inaanu sida u soonaay waxa kamid ah akhlaaqdeedu inay kor u kacdo sidoo kale waxa kamid ah walaalayaal waa bil Ilaahay ugu tala galay macsiyo dhan in laga fogaado 14 saacadood ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii u soomanaanaysa oo aadan xumaata u fiirinayn oo aadan u eegin dhinacyada Soomaalidan garan maxaa dhalinyarada Nabiga sallallahu alayhi wasallam kula dardaarmay haddaysan guur awooday inay soomaan maxaa ila soonku shahwada waajibinaya naftana waa laylinaya wana cadaadinaya bishani waa bishii nafta la laylin laha la cadaadin laha mawjadaan sida daraadeed ba soonku waxa weey wuxuu yahay bishii xumaanta looga fogaan laha bal fiiri waxa ku tababaratay taacada Ilaahay akhlaaqdaadi ba kor ugu kacday macsiyadii ba ka fogaatay waxa soo baxaya qof saafi ah oo nadiif ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhow ba bishan markii Ramadaan ay dhamaato waxa way soo baxaya oo ciidaya mawjadaan sida daraadeed walaalayal bishani maaha bil ciyaara maaha Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu khayrkana waafajiyo bishan insha Allah ta'ala kalimadayda intaasan ku soo koobaya wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي